yoga zon salaamay dhamaantiin abu meel walba caalamka joogtaan waa anigoo walaalkiina Amiin Xasan ah idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channelkayga haddaad ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid aadan ka hilmaamin inaad taawatid gambaleelka saad ula socotid muuqaalada soo socda ma tahay qof dhibaataysan ma tahay qof murugaysan mise waxa tahay qof wax walba rabo inuu sameeyo aanan u suurtagaleynin jawaabtaadu haddii ha tahay mise mid ka mid ah haddii ku haysato bas maanta muuqaalkan adiga ayuu kugu socdaa gabar ayaa jirtay waxayna rabtay inay dal kale u safarto laakiin si walba ay sameyso wax walba ay tijaabiso way u suurtagali weysay marka maalin maalmaha ka mid ah iyadoo murugaysan meel iska fadhisa aabihii ayaa imaaday kadib wuxuu dhahay aabbo hal markaale maanta jikada iraac waxa ayaan rabaa inaan ku tuso jikadii ayay isku raaceen jikadina wuxuu ku diyaariyay 3 sufuriyadood oo biyo ku jiraan kadib sufuriyo walba wuxuu geliyay yani mid wuxuu ku shubay batato ama baradho midna wuxuu ku shubay ukun midna wuxuu ku shubay kafee kadib wuxuu dhahay muddo 15 daqiiqo ah bal ila daawo isug xoogaa yar shan intoon daqiiqo kadib gabarta ayaa waxay dhahday aabbo waxaad ina ii sheegtid ma ii sheegtid waa iska nasan lahaa xoogaa markaas wuxuu dhahay hal daqiiqo kale isug halkii daqiiqo kadib wuu damiyay kukarkii ayuu damiyay 2 saxan ayuu soo qaatay saxanka koowaad wuxuu ku shubay baradhadii saxanka labaadna wuxuu ku shubay ukumihii markaas wuxuu dhahay maxaad u jeedaa markaas ay dhahday maxaad u jeedaa maxaan kala wadaa midna waa baradho midna waa ukum midna waa kafee markaas wuxuu dhahay eesaaska mooday ee si fiican u fiiri ee qabo gabartii ayaa waxay qabatay baradhadii way taataawatay waxay aragtay inuu jilaac noqday markaas wuxuu dhahay baradhadan intuusan biyaha aadin wuxuu ahaa mid adeeg balse markuu biyaha aaday wuxuu isku bedelay mid jilaac ah sidoo kale aabihii ayaa wuxuu fiiqay ukuntiina markaas wuxuu dhahay hadda u jeedaa ukuntan waa adeeg balse intaysan biyaha aadin ka hor waxayna ahayd mid jilaac ah sidoo kale laakiin kafeega ayaa ka duwan labada kale wuxuu dhahay kafeega markuu biyaha aaday markuu ka soo baxay waa sidii laakiin waxna isma bedelin laakiin wuxuu bedelay biyihii qofka bini'aadanka ah waa sidaas ayagana markii soo wajahda dhibaato mid wuxuu noqdaa sidii baradhadii oo kale marka intuusan dhibaatada u wajahin ka hor wuxuu ahaa qof adeeg ah laakiin markuu dhibaatada soo wajahday qalbiga ayuu ka jabaya waxaa jira dad qaar intaysan murugada amaba dhibaatada aan soo wajahin iska ah qalbi jilaac laakiin markii dhibaato oo soo wajahda ay noqdaan qalbi adeeg waxaana jira qof markuu soo wajahda dhibaatadaas oo kaliya kuma ekaanayso inuu wajaho balse noloshiisa oo idil ayuu bedelaya marka adigana waxaa laga baahan yahay inaad saas noqotid sidoo kale horta ma wanaagsana inaan sheegno dhibaatadeena inaan dad kale aan la wadaagno waayo nimcooyinka aan haysano ayaa ka badan dhibaatada ayna soo wajahda intaan wada kulmi doono muuqaal kale sidaan ah waxaa idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo